nin ka dhashay qoys masiixi ah oo kusoo islaamay kitaab qur'aan ah oo uu meel cidlaa ka helay. intaan u gudagelin sheekada haddii ay tahay markii kugu horeyso aad nasoo booqato nagu soo biir mahadsanid. waxaa laga yaabaa in aad maqashay sheekooyin badan oo ku saabsan dad kusoo biiray ama qaatay diinta islaamka, balse ninka reer London ee la oran jiray Yuusuf waxa ay sheekadiisa uga duwan tahay sheekooyinka kale. waxa ay leedahay xiise gaar ah. islaamnimada Yuusuf waxa ay kusoo beegantay kadib markii nuqul ka mid ah kitaabka qur'aanka kariimka ah uu ka dhaxlay garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee lagu magacaabo Old Trafford. waxay ahayd sanadkii 2007 Yuusuf oo ka shaqeynayay garoonka kubadda cagta ee Manchester United ee Old Trafford ayaa waxa uu garoonka gudihiisa ka dhaxlay nuqul ka mid ah kitaabka quraanka ah xilli uu ku guda jiray shaqadiisa, isaga oo ka sheekeynaya safarkiisii uu ku galayay islaamka ayaa waxa uu yiri waxay ahayd wax la yaab leh kadib markii aan quraanka kariimka ka dhaxlay garoonka Manchester United ee Old Trafford kaas oo aan ka shaqeynayay. waxa uu ahaa markii aan arkayay mid booreysan, waxaan ka helay qoraal gacmeedkan meesha yaala kadibna waxaan u degdegay in aan nadiifiyo oo aan meesha ka qaado. Yuusuf oo nuqulkii ka midka ahaa kitaabka quraanka u qaaday gurigiisa ayaa waxa ay xaaskiisa kaga carootay kitaabkaasi uu geeyay gurigiisa. isaga iyo xaaskiisana waxay isku qabsadeen kitaabkan la keenay gurigiisa. xaaskiisa ayuu uga hanjabay in haddii ay tuurto kitaabka quraanka iyadana ay meesha ka bixi doonto. markii ay maqashay xaaskan jawaabtii uu bixiyay seegeeda Yuusuf ayaa waxa ay weydiisay maxaad sidan u sameynaysaa mar haddii aadan ahayn muslim. waxa uuna ugu jawaabay haddii aad akhrin lahayd sadar ka mid ah buuggan maadan u quurteen in aad tuurto. Yuusuf ayaa sheegay in ay weligeedba jirtay dareen gaar ah oo jiidanayay oo ku saabsan muslimnimada, waxaana jirtay xilliyada ka mid ah isaga iyo saaxiibadii intii israaceen dalxiisna ay u aadeen dalka Spain, haddana ay isku soo afdhaafeen waxyaabo ku saabsan muslimnimada. ugu dambeyn Yuusuf waxa uu bilaabay in uu la xiriiro dad badan oo diintoodii hore ka baxay islaamkana kusoo biiray. waxa uu sidoo kale bilaabay in uu la xiriiro culamo badan. ugu dambeyn waxa uu helay qof asxaabtiisa ka mid ah oo muslim ah oo uga jawaabay su'aalihii uu qabay dhamaantood. Yuusuf waxa uu bilaabay ugu dambeyn in uu la xiriiro maamulka masaajidkii ka ag dhawaa gurigiisa, ugu dambeynna shahaadada loo qabto. Yuusuf waxa uu ugu dambeyn qofnimadiisii banaanka iyo gudahaba uu u guuray muslimnimo. waxa uu la baxay garka isaga oo jamaacada kula tukada masaajidka. marka la eego natiijada tirakoobka ee boqortooyada Ingiriiska ay sameysay dadka ku nool wadankaasi waxay ahaayeen 6.5% dadka ku nool wadankaasi, halka 2011 ay ahayd 4.9%. haddaba sheekada Yuusuf waxay ina tusaysaa in qofkii Ilaahay hanuun ula doono uu hanuunsamayo.